waxaan ku weydiin lahaa haddii nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam maanta uu noolaan lahaa muxuu ilmaheena bari lahaa? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله السلام يا جماعة وناكسن سيدي أن نقبل سنين جمعه وحا كم تهي معلمها إسلامك أما ويجا مالينك مارتي مالينك هوليداي ضدك إسلامك إن أنا حسوسينه أما إسكو برارجن أنت يرتو أن إسكو دعنا وح وناكسن واي إنكو وقادني إن أنا هاي وداد أما الشيخ أنا هاي وحنكو يدين لها هدين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت ونولان لها muxuu ilmaheena bari lahaa? Anaga wuxuu bari lahaa dadka wuxuu bari lahaa waa fahmay ilmaheena muxuu bari lahaa? Maxay kula tahay ilmaheena inay baran lahaayeen? Waxaan rajeynayaa nabigu haduu maanta noolaan lahaa inuu bari lahaa ilmaheena Allah ar-Rahmaanka ah iyo naxariistiisa. In naxariista Allah subhanahu wa ta'ala ay ka badan tahay kana weyn tahay ciqaabtiisa. In badan oo anaga naga mid ah ilmaheena waxaan Ilaahay uga dhignaa subhanahu wa ta'ala in aan ku cabsino ama aan cabsi aad u badan ku galno. Yes, hadda korna waa ka hadalnay cabsida iyo ma aragtay rajadu qofka islaamka inuu ku wada noolaado, laakiin ilmuhu waxa la rabaa inay ku koraan ama ay fahmaan ama ay ma aragtay gartaan raxmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala, kalgacaylka Allah subhanahu wa ta'ala. Wuxuu bari lahaa ama u bari lahaa ma aragtay ilmaha in ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala caabudaan oo cibaadada maadaama ay Ilaahay jeclaadeen subhanahu wa ta'ala ay Ilaahay ay caabudaan intii ay awoodaan si ay jacaylkaas uga rumeeyaan ama jacaylkaas ay u qaadaan tilaabadiisa bubarla. Tan saddexaad nabigu wuxuu bari lahaa oo aad iyo aad u bari lahaa oo barayna ummadeena tusaale ahaan in akhlaaqdu ay ma aragtay ama loo soo diray nabigu sidoo sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu akhlaaqda dhameystiro. Haddaba intee in la eg baan anagu arintaas ka midaysanahay ama well rounded kanahay. Well rounded macnaheeda si dhameystiran inaan ilmihi Ilaahay jeclaysiino subhanahu wa ta'ala, cibaadadii u qurxino وعنق عبادتي وقرح وأركو إنه أخلاق ذي فهمه وفهم أخلاق إنه كم تهي عبادتي وحنا النبي الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلا يقبل المهنة كبار علينا إن بدنوا المهنة عم المهر رونة سي أي إله وقبل سبحانه وتعالى إن تامو الله كسودعه وحي لنا يعني أمن يدو كسودع عيسى إلهي رودة وأن حريص لهين وحنا كينيس السيدة أن أترجني أما السيدة أن أبرنا كينيس مركا وحن encourage جرين لها hooyada iyo aabaha ma ahan inaan farta ku taagno culimadeena in badan oo kamida raxmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala say uga hadlaan Ilaahay siday noogu waramaan wax aad u badan waa andaad waxa naga dhigay in badan anaga aan muslim laakiin arinta aan ka hadlay waxa waaye waalidku wuxuu u joogaa ilmihiisa example-ka ugu horeeya ama ku dayashada ugu horeysa message-kan waalidka iskale waalidku inuu fahmo in message-kan ilmaha la barayo iyo gurigan ay ku dhasheen iyo ilmahan مسلم يقال مننا أنا كل لنا لكن قولي أنا كل شيء نقول يوحيين إني واردكم فهمان واردكم إنه المها برو إلهي سبحانه وتعالى أنا حديث ليس إلهي سبحانه وتعالى سيد اللي عابد إنه برو إلهي سبحانه وتعالى يا نبي يسون إن الله صادر ونبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أخلاق الله ده مستر أبرا وعنو بفهمه وقرته أخلاق ده وناكسن وحيكمل تهاي أما أخلاق الله ده مستر وحيكمل تهاي مش إنكي أما وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدره وإلمها يكتغير قاتان ما هي وذات لكن ما أنت جمعها أنت حسن تعلادنا إن لا شر قريو إن أنا فرط قفيقن إن أنا كسجن إن أنا أملين المهن هذا دكسي وهدروب قرنا دكسي كسو قادنا إنه معلن كي أما الشيخ وصابري إنه جي أخلاقي وناكسنا لكن جوري إنسان مهم كأهين إن عبادتي إمارة إنسان جوري مهم كأهين إن الله برشدي إنسان جوري مهم كأهين جوري قيب وين بو أرنتها سكيه برشدنا وحيقول للسنتها هي أو السماء سنتها هو جوريوا dan markaas guriyahaas waxay noqdaan bulshadaas waxay noqotaa dad nacfi leh ama aan nacfi lahayn marka as bulsho ahaan anagoo culimadeena iyo wadaadadeena iyo dadkeena haysana aan fahano inaan ilmaheena as waarid masuul ka nahay inaan arintaas ku celcelino fahankayga ma aragtay intaas waaye waxaan rajeynayaa hadii fahan ka sareysa oo ka cajiibsanaysa inaan nala share garayso maalinka jimcaha waxaan aad iyo aad u jecelnahay inaan isku baraarujino saan horeba u sheegnay guushu waa diintuna waa guul aanu dhamaanteen fahano guul ka wanaagsan male inaan diinteena dhaqankeeda iyo cibaadadeeda iyo kalgacaylka Allah subhanahu wa ta'ala anaguna fahansanay ilmaheena aan u gudbin